munaasabadana lagu maamuusay maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 21 November ayaa maanta lagu qabtay xarunta hoolka shirarka ee jaamacadda Al-Cimri ee magaalada Muqdisho. ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay Professor Xuseen Tooxow oo ah arugacada in badan ku soo dhex jiray waxbarashada isla markaana macallin ahaa muddo in ka badan 40 sanadood. waxaana ka hadlay manhajka Soomaaliya ay leedahay marka inta duruus oo laga bartay waa ogsoontahay marka waxbarashada informalka waa waxbarashada ugu xoog badan mataqaan hadii marka aan leeyahay waxbarasho nidaamiya oo ardayga hagta oo jid fiican mariso waxa way dhibaato keenaysaa maanta waa ogsoontii wadankeena macallimiin badan manhaj far badan buugaag far badan oo laga diyaariyay muqarraro kala duwan oo laga diyaariyay manhaj kala duwan ayaa wadanka maanta yahay ani waxaan kamid ahay dadka manhajka Soomaaliya hadda wax ka sameeyay muxuu ahay muqarrarka wax ka sameeyay buugta horena waa aniga qorgarigo ilaa fonforo. sidoo kale halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha ardayda jaamacadda Al-Cimri Rabiire isagoo ku hadlay magaca ardayda waxaana uu sheegay in aad ugu faraxsan yihiin maanta oo ah maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 21 November. marba hadalkiina ku sii dheeraado waqtiguna kulanay awgeed waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan dhihi karaa macalinka waqtigiina halka uu naga taagan yahay aad ugu faraxsanahay munaasabada qaaliga waxaan soo dhaweynayaa mulka sharafka gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Al-Cimri ahna gudoomiyaha macadka luqadaha Al-Cimri Cabdirasaaq Ibrahim Aadan British ayaa dhankiisa waxa uu ku dheeraaday kaalinta ay leedahay waxbarashada isagoo dhalinyarada Soomaaliyeed ku guubaabiyay inay wax bartaan si ay mustaqbal ay u yeeshaan. to teach from the heart qalbiga wax ka dhigaa not from the focus buugta ka dhigaa buugga macalinku waa adeegsadaa laakiin macalinku wuxuu dhigaa wuxuu yaqaano oo qalbigiisa ka soo go'ayo saa awgeed marka walba waxaad dareemaysaa teacherka waxaa la yidhi is like a candle waa runtii waxaa la yidhi shumac oo kale shumacu ayaa lahaa consumes itself isaa isquudanaya iscunaya marka haye laakiin maxaa ku jira to lighten muxuu laakiin markuu isquudsagu to lighten waxuu iftiiminayaa the way dadku u iftiiminayaa for other dadka lagu iftiiminayaa. ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Al-Cimri Dr. Cabdicasiis Ibrahim Aadan Kanooni isagoo markaasi dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay wax bartaan isagoo ka hadlay taariikhda maalinta macalinka Soomaaliyeed. taariikhdu markii ay 21 November ay ismaqal waxay taariikhdu markii ay 21 November 1974 si fiican u dhigayso waa taariikh xasuus mudan waaye 1974 November ayaa aqoonsi buuxda oo loogu talagalay munaasabadda lagu weyneynayo macalinka Soomaaliyeed ayaa waxaa isugu yimid madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya xilligaas Allah u naxariista madaxweyne Maxamed Siyaad Barre golihiisa wasiirada hay'adaha waxbarashada macallimiinta aqoon-yahanada iyo dhammaan indheergaratada iyo bahda bulshada ku jirta ee odayaasha maalintaasi waxaa loo aqoonsaday in maalin macalinka Soomaaliyeed lagu weynayo marka macallinkii bulshada hadduu ku waayo xishmad ama ardaygiisu xishmad ka waayo dhaqaalihiina uu ku yaryahay halkaas waxaa ka soo baxaysa macalinka inuu dismoral uu noqon oo uu waxba ku qaban karin marka macallimiinta la soo dhaweeyo hal xishmeeyo waayo annaga maanta markaan magaalada marayna haddii aan dhex socono waalidiinta ilmahooda aan wax soo barnay haddii ay baar fadhiyaan iyo hadduu bawrato waa noo istaajiyaan waayo intaasoo kun oo arday dugsi sare ah ayaan gacantooda waxaan ku sii shahaadooyin dugsi sare ah. maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 21 November ayaa sidoo kale laga xusay degmooyinka gobolada qaarkood iyadoo aad loogu weyneeyay munaasabadaasi maalinta macalinka iyadoo halku dhig sanadkan uu ahaa xurmee xuquuqda macalinka Soomaaliyeed. Xasan Maxamed Cali Xasan Antena Somni TV Muqdisho.